madashan aadka u quruxda badan aynu ku soo xidhayno tababarka lagu tababarayay macallimiinta farsamada gacanta haddaan ka bixiyo faahfaahin tababarkani wuxuu noo soo bilaabmay 22 bisha wuxuu socday muddo 7 cisho ah waxa ka qayb galay 40 macallin waxay ka socdeen 4 gobol togdheer saaxil hargeysa ama maroodijeex iyo awdal macallimiintaas waxay isku jireen xirfado kala duwan waxay isugu jireen macallimiin hore oo tababarnaayo refresher u noqonaysay iyo macallimiin hadda ku cusub filka wax dhigista waxa ku jiray qoliyo iyaguna ah ardayda hadda sekondariyada tifadka ka baxay oo 5 ah iskuulka farsamada gacanta Hargeysa ku soo darsaday oo ay yiraahdeen waxaan u baahanay inay assistants noqdaan say hadhow toole maxaan ku dhahday sanadkan baajka u bilaabmaya malaha oo ardaydii ugu wanaagsaneeda sidoo maamuluhu inoogu soo gudbiyay waxay qaateen casharo ku saabsan sibat wax loo yiraahdo ama loo soo gaabiyo la yiraahdo competent based education and training oo ah habka lagu tababaro macallimiinta wax ka dhiga farsamada gacanta anigoo ku hadlaya afka macallimiinta tababarkan qaadatay waxaan marka hore salaamaya dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb galay xafladan qiimaha leh iyo dhammaan macallimiinta halkan aanu training-ka ku wada qaadan dhammaan waana salaamaya waana u mahadnaqayaa hay'adda iyo wasaaradda iyo dhammaan dhinacyadii kala duwanaa ee soo qaban qaabiyay barnaamijkii qiimaha lahaa ee tababarka macallimiinta la xiriiray barnaamijkaas oo aanu kaga qayb galnay macallimiintii tafadka ama farsamada oo gobolada kala duwan ee Soomaaliland ka kala socday runtii waxaan ku tilmaami karaa fursad aad iyo aad u qiimo badan oo dahabi ah fursad taariikhi ah fursad sektorka tafadka iyo guud ahaan qarankaba qiimo weyn ugu fadhida wax weyn ku soo kordhin doonta ayaan ku tilmaami karaa waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa Save the Children oo had iyo jeer baahiyaha aan priority-ga siino ka jawaaba oo ay ugu horeyso macallimiinta waxa weeyaan adeega waxbarashada iyaga bixiya maadaama bixinayaan adeega waxbarashada dhamaanteen waxaanu hubnaa inaan dadku fakale kala duwan ay barteen oo skillsa laakiin aanay marka hore u tababarnayn macallimiin oo macallinku yahay wax gaar ah ama section gaar oo tababarkiisa leh kadib markii loo ogaanay baahiyaheena waxaanu ogaanay inaan u baahanahay in macallimiinta loo tababaro inay macallimiin noqdaan farsamadii gacanta ee gudbiya taasina ay u baahan tahay xirfad gaar ah oo macallinimo ah marka tababarkan wuxuu khuseeyay in macallimiinta lagu dhiso xirfadooda macallinimo ruuxantii training-keenani uu ka qiimo badnaa traininadii hore aan baranay waayo waxaanu baranaynay dhinacyo badan training taabanaya taasi oo aynu 40 macallin ka soo qayb galay aynu rajaynayno inay feedback ku celin doonaan iskuuladii ay ka kala yimaadeen marka insha Allah taala rajo wanaagsan ayaan rajaynaynaa ka wasaaradahan waxaan sameyn doonaa inaan ku daba galno oo waxa aynu baranay inay ardadii heleen iyo in kale aynu insha Allah taala eegdo mar hadii ay ka timiday wasaaradii iyo Save the Children in tababarkan la qorsheeyo lana qabto idinkuna aad ka faa'iideysataan taayada waan sameynay marka imika waa tiimi oo ah inaad idinkuna isticmaashaan marka aad sii baraysan ardayda aad u tagi doontaan mashruucani waxa uu soo taageeray batch hore oo dhameystay waxaana qorshaysan batchkii ku xigay in la qaatay imika oo aad tababarka siin doontaan waxaan aad u rajaynaynaa in uu keeni doono kana faa'iideysan doonaan batchka dambe tababarka la siiyay iyaguna ka sii faa'iideysan doonaan Save the Children waxa ka mid tahay hay'adaha wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda waxbarashada waliba waxa waa strategic partner banana waxa nagala shaqeeyaan hawlaha waxbarashada qorshayaasha si loo fuliyo farsamada gacantu waxa qayb muhiim ah ka tahay ama mudnaanta koowaad ka tahay qorshaha qaranka Soomaaliland oo dhan ka mid tahay ay mudnaanta koowaad ka tahay qorshaha wasaaradda waxbarashada oo da qaranka uga mas'uul ah waxbarashadana mudnaanta koowaad bay ka sii tahay marka sababta mudnaanta koowaad looga dhigay maxay tahay marka isweydiinna waxa weey farsamadu
ugu horeyn qofku markuu farsamada gacanta barto horta dee wax soo saar buu sameynaya waxbuu soo saaraya shaquu helayaa wuxuu markaa qofkaasu kafaynayaa ama uu daboolayaa baahihiisii isaga shaksiga ahaa waxaa kaloo qofkaas daboolayaa baahihii kale dadku u baahnayn wuxuu kaloo markaa daboolayaa qofkaasu inuu noqdo canshuur bixiye marka canshuurta la bixiyo waxaa ka dhalanaysa markaa in dhaqaale waddanku kor usoo kaco waxaa dhalanaysa markaa in la sameeyo iskuullo goobo waxbarasho jideedka inaynu samaysano caafimaadka inaynu kor u qaadno markaa saasaa xirfaddu markaa mudnaanta koowaad ee markaa dowladda uga dhigtay wasaaradda qorshaha u yaalla waxa weeyaan gobol kastoo somalilan ku yaalla in laga furo dugsi farsamada gacanta ay xukuumaddu leedahay marka kuwa kale gaarka ee furanna markaa xukuumaddu way dhiiri gelinaysaa waa la caawinaya iminka waxaa ku yaalla hargeysa waxaa ku yaalla dugsiga farsamada gacanta ee hargeysa berbera waxaa ku yaalla dugsiga farsamada gacanta ee berbera burco waxaa ku yaalla dugsiga farsamada gacanta ee burco oo si wanaagsan u shaqeeya laakiin dee qaabkii loogu talagalee qorshaha xukuumaddii ay ugu talagashay weli aan la gaadhsiinin fuaad baa nala jooga runtii wax badan iskuulka ka qabtay labadaa iskuul iminka hargeysiya burcad aan tusaale soo qaadano waxay dhaafeen iminka heerkii dadka tababaraya intay dhaafeen ay waxay samaysteen production inay soo saaraan kuraastii iyo miisaska ardayda ku fadhiisato dee iskuulladeena kalena waxaan u baahnay inay soo saaraan iyaguna kuraastii iyo miisaska hodheelada dee maasooro kalaa ay dadka ku fadhiistaan kuwa xafiisyada somalilan ee muwaadiniintu leeyihiin kuwa dowladdu leedahay kuraastii lagu fadhiisanayay halka dibadda laga keenay in adinku soo saartaan baa la doonaya markaasee markaa wax soo saarkii iyo shaqa abuurkii iyo canshuur bixintaan ka hadlaynay ay imanaysaa gobolka sool waxaa ku yaalla markaa iskuulka farsamada gacanta ee adhe caddeeya degmada ladhaa ku yaalla si fiican buu u shaqeeyaa waxay jira iskuulka beeraha lagu barto farsamada gacanta ahoo beer magaalada beer ee burca halkaa ka xigta bariga ku yaalla waxaa iminka la asaasayaa socda oo dhowaan aan la furi doonaan dhagax dhignay dugsiga farsamada gacanta ee gabiley dhammaadka sanadkan waxaa isna la bilaabayaa dugsiga farsamada gacanta ee gobolka awdal degmooyinka 23 degme doorasho qorshe wuxuu yahay in laga furo markaa dugsiyo farsamada xirfadaha gaagaaban lagu barto ka aad iyo aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu